In maalinta guushaada waxbarasho in garabkaaga ay ka soo muuqato hooyada waa farxad kaloo kugu siyaaday. Inaad xirato dharka qalinjibintaada oo aad laabta geliso hooyada waa farxad kaloo aan la soo koobi karin qiimaheeda. In maalinta damaashaadkaaga farxadeed in indhahaagu ay qabtaan qofka ugu qiimaha badan dunidan, iyadana waa iftiin kale oo saacadahaas ku siyaadaya indhahaaga. In maalinta oo dhan in qofka ku weyn qalbigaaga ay hooyada ahaatana waa darajo kale oo qiimaheeda xambaarsan. Wiilkan dhalinyarada ee kuu muuqanaya waxa uu hiigsada mid ka mid ah guulihiisa mustaqbalka, balse ruuxa guushaas ku garabsiiya waa hooyadiis oo marna habeenkii akhrinta casharada u kicin jirtay, marna dardaaran la daba taagneed. Waa hubaal dhalinyaro badan oo hooyadood ay u nooshahay waxay heleen fursadda farxadeed ee wiilkan oo kale, iyo sidoo kale damaashaadkan qiimaha badan mid la mid ah. Waxaa badi dhacda marka xafladaha qalinjibinta ee jaamacadaha ay dhiganayaan in qof kasta oo qalinjibinaya in la siiyo 2 warqadood oo uu ku geli karo hoolka xafladda lagu qabanayo. Midna isaga ayaa loogu talagalay, midna qofka uu jecel yahay inuu goobta ku casuumo. Balse wiilkan waxa uu sharfo hooyadiis oo uu ogaa in qof ka mudan aysan jirin booska wehelka uu kaga baahnaa. Hambalyo ayaanu leenahay wiilkan. Ku xirnow mar waliba Sharmaarka Media.